سواء waxaan rabaa golaha wasiirada xildhibaanada maareeyayga gudoomiyaha maxkamadda maareeyaha aeroboorka taliyaha booliiska gudoomiyahayga aniga gudoomiyaha ayaa 4 sano la soo dhaafay xasan xaashi saaxiibkay Abubakar Turkish Airways Ethiopia Airline diyaaradaheena kala duwan waxa intii ka joogta dhammaantii waxaan rabaa inaan ku salaam salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh agaasimahaygii sharafta leh farxiye adiga waxa waaye anoo kala la mid tahay la taliye sare Jaabir dhammaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska waxa ka jooga mujaahidiin aan waqti badan isla soo qaadanay gaaran idin salaama waxaan rabaa mas'uuliyiinta masabka iyo magaca halkan ku fadhisan inaan kugu mahad celiyo runtii farxad gooni aniga maanta ii tahay dadka waa ka duwanahay waxaan rabaa dalkeena maadaama uu xilli doorasho ku jiro xilli kala guura waxaan u tanasulay macnaha inaan tuso macnaha Soomaalida in taariikh gooni ugu rato laano dalada maanta aan ka tanasulay meeshii aniga aan ka soo waday dad badan oo meeshan fadhiya marqaati ka ah saaxiibkay maanta wuxuu la wareegi doonaa xafiis dhisan shaqaale qayb dhan oo building oo intaas oo xafiis ka kooban laakiin anu intaas lamaana wareegin marka waa iga nasiib badan yahay marka anu intaas haysta miisaaniyadii ay ku qabsato doorashadeeda aan cidna laga soo qaadin inaan maanta xilki ku wareejiyo qasnadeedana aan lacag ku ogahay sharaf gooni ay tahay marka waxaan rabaa odagu meel ilaa ka tagayaan leeyihiin marka waxaan rabaa qof walba oo sanadkan doorasho galaa inuu sidaan oo kale uga tago waxa uu dhisay aan ka baranno inay dalkanaga haysto dimuqraadiyadda iyo xilli isku dhiibku ay sameeyaan wax af ah ay noqdaan wax baraatig ah qofku waxa nool inuu ka tagaal rabaa intuu waxa inta dilo oo dhihila wixii oo baabay oo dhihila maanta ama laga kala tagi lahaa laakiin waxaan rabaa aniga waxa iga horeysay laba gudoomiyo halkan fadhisa waana u mahad celinaa saaxiibada shaqadii soo qabteen maadaama ay laba gudoomiye hore u jirtay anuguna 3 aan ku sii noqday gudoomiyuuna 4 ku sii noqday taas waxay ku tusaysaa macnaha meeshaan u socono waxaan rabnaa dadka soo socday saaxiibada nagu soo biiri doona inay ayaguna markooda qaataan waxaan rabaa dalkeena hodan waaye shaqada aan ka shaqeynana muhiim gooni u tahay si gooni waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo wasiirkeena wasiir Dube runtii oo ah madaale halkaas noo fadhiyo